kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiinba meel bood naga daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan qodobada qaran joog wararkan waxa ugu waaweyn fil Soomaaliya oo degniintii ugu dambeysay siisay Sheekh Cali Wajiis ragii dilka iyo qaraxyada ka geysan jiray magaalada Muqdisho oo saaki la toogtay maamulka Puntland oo shirkadda diyaaradaha Dalo Airlines ka mamnuucday deegaanadeeda kuna badashay mid Ethiopiana koril caare oo shuruudo adag ku xiray wada hadalka uu la galay Somaliland sarkaal ka tirsan ciidamada dawladda gaaraan kuwa canshuurta maanta Muqdisho lagu toogtay iyo dilka ninkii ka dambeeyay oo gacanta lagu dhigay shirka u dhaxeeya Igaad Axmed Madoobe oo fashil ku dhamaaday iyo xaaladaha Kismaayo oo marba dhinac u jeesanayo warbixin kooban ayaan idinkaga haynaa oo waxaad ku daawan doontaan warkeena wararka ka imaanaya magaalada Laascaanood oo gobolka Sool ayaa sheegay in ciidamo uu hogaamiyo Cornel Faisal Falaaluug ay weerar ku qadeen ciidamo ka tirsan kuwa Somaliland ku sugan xerada Buurta Sayidka ciidamada cusub ee dawladda federaalka Soomaaliya ay u diyaarisay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab oo la soo bandhigay gudoomiye ku-xigeenada gobolka Banaadir oo safar dibadda ah laga joojiyay taas oo keenaysa in wali uu jiro tuhun baaritaan dhanka ah gudoomiyaasha ku-xigeenada gobolka Banaadir aliyaha Itoobiyaanka ay Amnesty oo ciidamo uu wato oo ka dagay magaalada Kismaayo balse ujeedka muxuu yahay oo taliyahaasi Amnesty ee Itoobiya ugu tagay warkeena aad ku maqli doontaan waxaana inta noogu ekaaday qodobada wararkan ugu waaweyn kalse ku soo dhawaada warkiina faahfaahsan markale daawadayaasha aan jecel lahay isku soo naqad haboon fadlan haddii uu yahay channelkayga markii ugu horeysay soo booqato waxaan si naxariisan kaga codsanayaa inaad subscribe saarto gabalkan aad furato si ku soo gaaro wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka mahadsanid daawade aan ku horeyno wadaadka aadka u taageera dawladda Soomaaliya balse waayihii dambe qaladaadkiisii ku batay madaxtooyada Soomaaliya Sheekh Cali Wajiis ayaa markaan wajahayo cadaadis xoogan kaga imaado fil Soomaaliya sida ay ogaatay qaran joog news Sheekh Cali Wajiis ayaa toddobaadkii hore la kulmay saraakiil ka tirsan xafiiska madaxweynaha Soomaaliya waxayna ay ku wargeliyeen in fil Soomaaliya uu dhamaad ka joogo dulqaadkiina isla markaana ay go'aan qadan doonaan sida uu dhaqsiyaha badan hadii uu isbedel la imaan waayo Cali Wajiis oo ah la taliyaha arrimaha diinta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa horay loogu haystay in ay dabcan hadallo qaladaad ah u geystay dawladda Soomaaliya isla markaana ay dhibsadeen madaxtooyada Soomaaliya hadal uu Facebook ku qoray kaas oo ku saabsanaa arrimaha xajka Sheekh Cali Wajiis ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya waxaana uu raaligelin ka bixiyay qoraalkiisa qalqal geliyay arrimaha xajka maadaama uu ahaa gudoomiyaha guddigaasi qabanqaabada xajka oo ay magacaawday dawladda Soomaaliya sidoo kale fil Soomaaliya ayaa dhibsatay wareysi uu toddobaadkii hore siiyay wargeyska ka soo baxo dalka Sacuudiga ee lagu magacaabo Al Wadan wargeyskaasi ayaa kaga hadlay eedeymahaasi loo jeediyay dawladda Qatar iyo qaraxyada Soomaaliya Sheekh Cali Wajiis ayaa lagu amray in uu raaligelin ka bixiyo wargeyskaasi isla markaana uu sheego in wargeyska Al Wadan uu si qaldan u qoray wareysiga si loo beeniyo wareysigiisa waana uu ogolaaday Sheekh Cali Wajiis taladii iyo degniintii loo jeediyay wareysiga Sheekh Cali Wajiis waxba ceeb ma lahayn waxaana uu ahaa mid ka hadlay aragtidiisa sheekha oo ahayd in Qatar ay suurtagal tahay in ay ku lug leedahay weerarada iyo ka geystaan Soomaaliya iyo dabcan gaar ahaan Boosaaso iyo Muqdisho ee lagu eedeeyo fil Soomaaliya ayaa siisay digniintii ugu dambeysay Sheekh Cali Wajiis iyadoona sheegtay in aysan u dulqaadan doonin gaf kale oo u geysto dawladda Soomaaliya ama dawladda Qatar waxaana la sheegay in uu aqbalay digniintaasi isagoona ballan qaaday in uu ilaalin doono danaha fil Soomaaliya iyo midka Qatar kana magaalada Muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa saaki xukun dil ah ku fulisay laba nin oo lagu helay inay ka tasnaayeen al-shabaab kana qayb qaateen dilalka iyo qaraxyada ka dhacay magaalada Muqdisho labada nin xukunka dilka lagu fuliyay ayaa lagu kala magacaabay Anshuur Ismaan Abuukar Umar Asad iyo Maxamed Ali Barrow Aadan Cabdixakiin waxaana labadani ay qirteen dambiyadii lagu soo eedeeyay fagaaraha xukunkaasi dilkaasi lagu fulinayay oo ahayd iskuul booliisiya waxa ku sugnaa saraakiil ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo saraakiil kale oo ciidanka ah kuwa oo daawanayay sida xukunkaasi dilka loo fulinayay raggan la dilay ayaa ka qayb qaatay weeraro iyo qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho oo qalaaftay nolosha dad badan waxaana horay xukunkaasi dilka ah ugu riday maxkamadda ciidamada iyadoona isla maanta lagu fuliyay xukunkaasi
markaana Puntland maamulka Puntland ayaa soo saaray amar deegaanadaasi lagu mamnuucayo mid ka mid ah shirkadaha duulimaadkaasi Soomaaliyeed waxaana lagu bedelay shirkad kale oo duulimaadkaasi la markaana laga leeyahay dalka Itoobiya waaxda socdaalka Puntland ayaa lagu wareejiyay amar iyo wargelin ka dhanka ah shirkadda duulimaadkaasi Dano Airlines oo ka mid ah shirkadaha Soomaalida kuwoodii ugu horeeyay ee dalka ka shaqeynaya burburkii kadib ilaa iyo hadda shirkadani dabcan ayaa waxa iskale madaxweynihii hore ee maamulkaasi Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf oo markiisii hore ganacsada Soomaaliyeed sidoo kalena ku jiray arrimaha siyaasadda dalka waaxda socdaalka Puntland ayaa lagu wargeliyay in deegaanada maamulkaasi aysan ka soo degi karin shirkadda diyaaradda Dano Airlines markaana ay xogtaasi ay la wadaageen maamulka shirkadaha kale garoomadaas diyaaradaha dalka ee ka soo baxayso diyaaraddaasi dhinaca kale ee Puntland waxa ay dhawaanba deegaanadaasi ka shaqo bilaaway shirkadda duulimaadkaasi Ethiopia Airlines taasoo muddooyinkan ugu dambeeyay ka waday dhaqdhaqaaqyo tartan ganacsi oo la gelayso shirkadaha duulimaadka Soomaaliya sababtoo ugu weyn ee Dano Airlines lagu mamnuucay deegaanadaasi maamulka Puntland ayaa la aaminsan yahay in ay tahay kadib markii lagu eedeeyay in ay Muqdisho ka abaabushay kulan ka dhan ah shirkadaas Ethiopia Airlines oo duulimaadkiisa localka ah ka bilowday dalka wali ma jirto wax war ah ka soo baxay maamulka shirkadda Dano Airlines oo ku aadan go'aankaasi deegaanadaasi maamulkaasi Puntland lagu mamnuucayo waxaase xusid mudan in shirkadda duulimaadkaasi uu leeyahay madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ay saaxiibo dhow yihiin madaxweynaha hadda talada dalka maamulka Puntland haayo ee Saciid Cabdullaahi Daani markaana Somaliland hogaamiyaha jabhadda dulmadiid Korneyl Saciid Aare ayaa la sheegay in uu shuruudo adag ku xidhay in uu la soo afjaro dagaalka kala dhaxeeyo xukuumadda Somaliland isla markaana uu ogolaado wada hadal midho waxgaradka iyo odayaasha beelaha Somaliland ayaa muddooyinkani ugu dambeeyay waxay isku soo jiidayeen waana ka dhaxwadeen jabhadda Korneyl Aare iyo xukuumadda Somaliland midaas oo muddo hakad geliyay dagaalka labada dhinac suldaanka guud ee beelaha Habar Yunis Suldaan Maxamed Suldaan Xirsi Qani iyo wafdi odayaal uu hogaaminayo ayaa shalay waxa ay kulan kala qaateen buurta gobolka Sanaag hogaamiyaha jabhadda Korneyl Aare kuwaas oo sii xoojinayo cadaadiska lagu saarayo Korneylka in uu wada hadal la furo xukuumadda madaxweyne Biixi Korneyl Aare ayaa lagu soo waramayaa in uu shuruudo dhowr ah oo hordhigay odayaashaasi u tagay kuwaas oo ku xiray in ay wada hadal midho dhalo uu la furo xukuumadda Somaliland isla markaana uu noqdo bilowga maalintaasi colaadaasi wararka aanu helayno ayaa sheegayo in Aare uu dalbaday lacag gaaraysa $2 milyan taasi oo ku macnay in ay tahay magdhow hubka uu qaranameynayo ciidamada jabhadda maadaama uu sida uu sheegay ay tahay hanti beelo laga soo aruuriyay si kastaba xukuumadda Somaliland ayaa hore u sheegtay in xiisadda kala dhaxayso jabhadda Korneyl Aare ay ku dhameyn doonto wada hadal midaasi oo suurta gelinaysa in dalabkaasi Aare ee xukuumadda qalinka ku dugto markaan magaalada Muqdisho sarkaal ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa anshuurta ayaa saakii lagu dilay isgoyska Siinay magaalada Muqdisho dilkaasi ayaa waxa geystay rag ku baysan toldo oo marxuumka la dhacay dhowr xabadood sida ay qaranjoog news u sheegeen dad goobjoogayaal wararka ayaa sidoo kale intaasi ku darayo in ilaalada sarkaalkaasi dhaawaceen mid kamid ah ragii dilkaasi geystay iyagoo gacanta ku dhigay sarkaalka la dilay ayaa lagu magacaabo jiray Dawiil Cabdi oo lagu soo waramayaa in uu canshuuraha ka qaadi jiray ganacsada suuqa Siinay ee magaalada Muqdisho ciidamada ka tirsan kuwa ammaanka ayaa dilka kadib soo gaaray goobtaasi kuwa soo baaritaano kooban ka sameeyay halkaasi shalay ayay ahayd markii askari ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya lagu toogtay gudaha suuq bacaad kaas oo kooxii dilay oo hore ay u sii qaateen hubka uu askarigaasi ay watay markaana Kismaayo warar dheeraad ayaa ka soo baxayo shir u dhaxeeyo ururka goboleedkaasi IGAD iyo madaxweynaha waqtigiisu idlaaday maamulka Jubbaland oo xalay gudaha magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose kaas oo wararku ay sheegayaan in uu fashil ku dhamaaday shirkaasi oo ahaa mid xasaasi ayaa waxa wada qaatay ergeyga dabcan IGAD u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Dr. Maxamed Cali Guyo iyo madaxweynaha waqtigiisu idlaaday Axmed Madoobe labadaasi mas'uul ayaa ka wada hadlay arrimaha doorashada Jubbaland iyo tabashada ay qabaan musharaxiinta u taagan hoggaanka maamulkaasi ugu horeynba wakiilka ayaa warbixin ka dhageystay Axmed Madoobe taas oo ku aadan arrimaha ammaanka doorashada iyo xaaladda guud ee maamul goboleedkaasi Jubbaland
wararka ay heshay qaranjoog news ayaa sheegayo in ergeyga igaad uu soo jeediyay in ururkoodii uu goobjoog ka ahaado doorashada balse taasi uu ka biyo diiday madaxweynaha waqtigiisu idlaaday maamulka Jubbaland Axmed Madoobe waxaana uu tilmaamay in arrimaha doorashada iyo qabanqaabadeeda ay u madax banaan yihiin guddiga doorashooyinkaasi maamulkaasi uu isaga u magacaabay sidoo kale wararka ayaa intaasi ay ku dirayaan in labada mas'uul ay ku ballameen kulan kale oo maanta ay ku yeelahayeen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kaas oo la doonayay in lagu dhameeyo isfaham waagaasi u dhaxeeyo igaad iyo Jubbaland wali waxa isjiid ka taagan yahay doorashada Jubbaland oo lagu wado in la qabto bisha Agoosta ee hadda aan ku jirno markaan Laascaanood wararka ka imaanayo magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool ayaa sheegay in ciidamo uu hogaamiyo Colonel Faisal Falaaluug ay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa Soomaaliland oo ku sugan xerada Buurta Sayidka Faisal Falaaluug oo hogaamiyo jabhadda xoreynta ee gobolka Sool ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in weerarkaasi ay waxyeelo ba'an ku gaarsiiyeen ciidamada Soomaaliland isla markaana iyagu ay nabad qab kaga soo laabteen jabhadda xoreynta xali waxa ay gashay Buurta Sayidka ilaahayna waa uu nagu rooneeyay waxa yeelo ayaana dabcan waxa uu ku gaarsiinay annaguna nabadgaliyo ayuuna ilaahay nasiiyay aan kaga baxnay ayuu yiri Faisal Falaaluug dhinaca kale gaashaale Axmed Cabdullaahi Cabdi taliyaha qaybta booliiska gobolka Sool isaguna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in aysan aqoonsan cidii geystay weerarkaasi ayuuna sida hadalka ku daray waxa uu yiri baadhis ayaan ku wadnaa cidii ka dambeysay waxaana uu sheegay goobta annaga ayaa tagay oo soo eegay xerada militariga dusheeda ayay ahayd meesha tagnane saddex qore qasharkoodii ayaan ku soo aragnay qaarna waxa ayna weydiiyeen dad ayaa ku dhintay Laascaanood waxba ka dhacay magaalada Laascaanood gudaheeda waxba kama aysan dhicin xerada militariga dusheedii ayay ahayd annagana ayaa istaagay qof wax kale sheegayo ha sheego laakiin gobolka annaga ayaa amnigiisi mas'uul ka ah waxna kama aysan dhicin wuxuu taasi ku sii daray dadka la tuhmayo ayaa arintaasi loo xilay oo jiro taasi oo ciidanka dambaaristaasi ay gacanta ku hayaan oo ay baarayaan waxaana ku socoto baadhis sida uu sheegay taliyaha booliiska ciidanka booliiska ka fadhiisan maayo amniga waana waajibna saaran in dalka iyo dadkaba loo adeego aan nafta iyo dhiigaba u horno ayuu yiri taliyaha markaana magaalada Muqdisho ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo booqasho dhiirgelinba dardaaran ugu tagay ciidamo tababar lagu soo xiray xerada General Gordon oo lagu diyaariyay howlgalka dhanka ah al-shabaab oo lagu saarayo deegaamada ay hadda haystaan ciidamadani oo loo soo gabagabeeyay tababar ayaa qayb ka noqonayo ciidamadii horay sidaan oo kale tababar kadibna xoreyn iyo nolosha dib ugu soo celiyay deegaano oo heray shabaab u haysteen Xasan Cali Kheyre oo ballan qaaday in xuquuqda ciidanka ay leeyihiin loo dhameystirayo ayaa ugu mahadceliyay nafurnimada iyo ugu qayb qaadashada badbaadinta nafta iyo maalka ummadda Soomaaliyeed qoraal ka soo baxay xafiiska Kheyre ayaa lagu yiri wasaaraha ayaa kula dardaarmayo in howlgalka cadowga lagula dagaalamayo ee hadda loo diyaariyay si ay haatan joogto u wadaan inta dalka oo dhan laga xoreeyo argagixisada xerada General Gordon oo lagu tababaray ciidamo ayaa waxa horay ugu qalan jibiyay dufcadii ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo ka qayb qaatay howlgalka al-shabaab looga saaray magaalooyin badan oo hore ugu sugnaayeen markaana Muqdisho dawladda Soomaaliya ayaa 26kii bishii July ay ku beegneed laba habeen kadib qaraxii xarunta dawladda hoose gobolka Banaadir soo saartay amar safar dibadda ah iyo mid gudahaba ay ku baxay karaan Muqdisho loogana mamnuucayo dhammaan gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir qaranjoog news ayaa ogaatay liiska magacyada gudoomiye ku-xigeenada gobolka Banaadir iyo saraakiisha ka tirsan shaqaalaha dawladda hoose ee booliiska gobolka Banaadir la dhigay airportka magaalada Muqdisho ee Aadan Cadde dadka safarka dibadda ah loogu joojiyo ilaa iyo amar dambe waxa ku jira gudoomiye ku-xigeenkaasi amniga ee gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax gudoomiye ku-xigeenkaasi arrimaha bulshada Basma Amar Shagati iyo taliyaha booliiska ee xarunta gobolka Banaadir ciidamada ilaalada gaarka ah ee laboorka ee Muqdisho ayaa soo celiyay safar ay dibadda gaar ahaan Turkiga ay ku aadi lahayd Basma iyo
basma oo ah gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo dhowr caruur ay iyadu dhashay sidoo kale saraakiisha ka tirsan booliiska Soomaaliya iyo xubno ka tirsan maamulkaasi gobolka Banaadir ayaa loo diiday in ay u safraan dalka dibadiisa iyadoo la sheegay in booliiskaasi ay qof kasta oo xaq u leeyihiin inay baaraan xil kasta oo hayo iyo magac kasta oo leeyahay waxa wali socdo baaritaano weerarkaasi ka dhacay xarunta gobolka Banaadir waxaana la sheegayaa in booliiska Soomaaliyeed ay su'aalo weydiinayaan dhammaan xubnihii ahayd in ay shirkaasi ka qayb galaan balse ka maqnaayeen iyo dad kale oo raadad kale soo galan weerarkaasi ka dhacay xarunta gobolka Banaadir ayaa nabar xanuun badan ku noqday dowladda Soomaaliya waxaana socdo eedeymo loo jeediyay dowladda Soomaaliya oo ku aadan weerarkaasi markaana Kismaayo taliyaha guud ee ciidamada midowga Afrika ee AMISOM gaar ahaan kuwa Itoobiya ayaa sarkaal sare u hogaaminayo lagu magacaabo Ticbu Yilma ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose Ticbu Yilma oo wata ciidamo gaar ah ayaa ka degay barqanimadii maanta garoonka diyaaradaha Kismaayo iyagoo halkaas si weyn lagu soo dhaweeyay taliyaha oo hogaaminayo saraakiil kale ayaa loo galbiyay gudaha magaalada iyagoo haatan kulan xasaasi la qaadanayo madaxweynaha waqtigiisu islaaday Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kulankan oo saxaafadda dib joog ka tahay ayaa lagu soo waramayaa in lagu wada hadlayo arrimaha doorashada gaar ahaan sidii AMISOM ay u wareegi lahayd amniga magaalada xaybeedkaasi Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose sidoo kale wafdigaana ayaa kulamo la qaadan doono guddiga doorashooyinka Jubbaland iyo musharaxiinta u taagan hoggaanka maamulkaasi dhawaan ayaa la filayaa in la qabto doorashada iyadoo wali taagan tahay caqabado waaweyn oo u baahan in xal laga gaaro ee doorashada ka hor inta aan la gelin waxaan taa noogu idlaaday wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya ee aad ka daawanaysan qaran joog news fadlan haddii uu yahay channelkayga markii kugu horreysay soo booqato waxaan si naxariisan kaaga codsanayaa inaad subscribe ii saarto gambarkan aad furto si kuu soo gaaro wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka mahadsan daawade